knn. warwaadigan kashkashlaynee kelmaddaad mar tidhaahdo middii kaabil ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii kalamaane kulmiyaad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix kurodaanan kolkooda howay kurbadii ahayda sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn now dee dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeerya isku keenay aga eegga maannagaa isku maana maxaad kayga ku diidi dadku waa kalamaan kulmiyaana midaysay horta sheekadan kalamaana maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan knn. baladweyn allahayo kadhiguri barwaaqo baladweyn allahayo kadhig beerta raaxada baladweyn allahayo kadhig xera baraare baladweyn allahayo balayada hareer mare aryaadha heer beledweyne balaayada horta allaha hareer mariyo biyaha iyo debka masiibooyinka ay ka mid yihiinna dadka lagu masiibeeye allaha ka badbaadso shacabkii beledweynena biyihiyay ka qaxeenoo bannaankay dhooban yihiinaa layidhi qaarna biyahaaba la tegey waxa ba iyo hoog iyo jabna soo mara ummadda soomaaliyeed waxay ku badbaadi jireen gurmadka ay isu gurmaane dadkii heer beledweyne soomaaliyey ha loo gurmado oo ninba taagtii ha tillaabsadoo qof walbow taagtaa ha la heerin war maamulkii magaalada beledweyne dadka barakacay ay ka mid yihiin baa la yidhi xafiisyadoodana waxaa la yidhi biyaa ku shireeya biyo oo biyuhu madaxda hataa kama xishoodaan miya war masiibo hoobu kooytalaan wiin ilaan yar haliinkoona ma katabaaso ilaahay moodiye araada waa run marba haddii masiiba timaado madax ii mija meelay dhaafaysa ma jirto ee balaayadaas allahana mootiyo war sagaaradii xataa biyuhu ma qaadeen sagaaraad sheegaysaa weriida xataa ma ka fakanaan ku lee godkiisa biyaha ugu galeen arro war guddoomiyihii hore gobolka banaadir allaha u naxariista guddoomiye yariisow iyo intii la dhimatayba war guddoomiyihii ka horreeyaan kuu sheegayaa taabit war tarsan waa safiirka soomaaliya u fadhiya kenya war muungaab waa guddoomiye xisbi arrooya yuusuf madaale inta u aada ayaanta dadkana wow gurma jiriye $1 ku dhisa dalkaaga waa kilaamiyaal ku dhisaye maa looga daydo war xanuunkii idinku dhici jiraa idinku dhacaye naga dhegaysta warka taabid wuxuu yidhi dadka reer beledweyne dhammaan ummadda soomaaliyeed ha u gurmatoyaan qolo gaara iyo maamul gaara lagu hadlayna war gurmadkii ugu horreeyey oo dawladdu dirto maanta wuxuu ka tegey beledweyne diyaarado kalena waa tegayaana la yidhi maalmaha soo socda maantana ra'iisul wasaare khayre oo ay garbaha ka taagnaayeen lugta gareen lafta gareen iyo xaf gareen wuxuu magacaabay guddi ka shaqeeya gurmadka fatahaadaha marka uu la dardaarmayana wuxuu yidhi dadka waa in lagu gurmadaa si degdega dowladnimada waa in la tusaa meel kasta oo ay joogaan waa in hooyada soomaaliyeed ee biyaha gurigeeda ka saareen aysan dareemin xanuunka gaaray baladweyn allahayo balayada hareer mari amiin warnimada war ma haysaane maanta waxaan ogaaday madaxda soomaalidu inaysan kala roonayn mid kastaana u dhaqmayo marka la doorto wixii ka dambeeya sidii inuu kursiga qori ku qabsaday iyo xoog marka nabad iyo nolola waxaa lagu eeday jiray inaysan dhalaysha iyo hadalka u dulqaada karin maanta daniyaa la mid noqday madaxweynihii puntland shirkii baarlamaankuu furay khudbad dheer oo khayr badanaan qabta uu ku leeyahana waa u jeediyey laakiin waxay ugu darrayd markii uu xildhibaan cawil layidhaahay su'aalo weyddiiyey wuxuu yidhi madaxweyne amnigu inuu xun yahay waxaa tusaale u ah masaajidiya qunuud laga bilaabay maamulkaagu inuu iskhilaafsan yahana waxaa tusaale u ah adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaaga marka 9 biloodaad joogtaane intaan baarlamaanku shacabka ka turjumin kuraasta banneeyuu yidhi kadib madaxweyne deni sidii in kursigii laga qaaday buu u xanaaqay hoolkiioo mukayf ka daaran yahay iyo qabojiyaal badanina waa dhididay wuxuuna yidhi xildhibaankaani dawladdii iga horraysay
oo fadhiidkaaheedu ka mid ahaan waxay qabteenna lama arag aniguna maahay buu yidhi nin loo hanjabi karo iyo nin hadal wax looga qaadi karo baarlamaankala arrinta puntland iyo xaaladaha ka jira waa looga xog roonya kadibna asagoon dheg la qabta lahayn ayuu si halhaleela iridda uga baxay war henaagas mayba ka sheenay ka aalay ani shaleelay taliye oo madaxweyne daniyo raalli ahaa maxaa loo dhihi waayine maday isaaqo waa saad u tiriya waxaan maqli jiray shaleedeya shablay xaade dhiriirin warnimaya waxaa halka markuu saano kale noqdo cabdiweligaas wuxuu dhihi jiray adeer waa ii afkaada madaxweyne deni wuxuu dhihi jiray annaga iyo dowladda federaalka waxaan isku hayna fagaara saxaafadda ay joogta aan ugu doodno maantana mahal xildhibaan hadalkiisu uu dul qaadan waay waryaalahan war ma haystaane jumhuuriyaddii somalilan way salbataynaysaaba oo anugu waan la yaabanay wariyayaashii iyo dadkii haldi jiray oo dhan ee afhayeennada ahaa way soo raaftoo gebigoodba way ka soo wada yaaceen markaa jumhuuriyadda annagu aqoonsi baan u doonaynee muuse handaraab xagguu u sii handaraabaya war maayarkii waalnaaya hargeysa ee yidhi muqdisho dadka jooga bisadaha hargeysa ka roon wuxuu isla sawiray madaxweyne muuse biixi kadibna biixiyaa sawirkii ka carooday wuxuu yidhi waana isla kay sawiraysaa dadkii hargeysana waxay isku haysaa dhulalkii war madaxweynaha sawirka ma lagu gaaday war adeero maayar ku-xigeenkii hargeysa ee ina cagaweyne wuxuu yidhi madaxweyne biixi markuu diyaaradaha fuulo buu agtu akhristaa war maayar ku-xigeenku ilaa waa guulwada saddex deglaa war fanta ku dishay annagu guuladahaba oon necebnay horaa waxaa loo yidhi waqooyigan wax waa jiraan waxna jiidkay kuu soo jiraan waqooyigan wax waa jiraan waxna jiidkay kuu soo jiraan war cabdulla waa runtaaye ictiraaf wuu jiraa laakiin kuwo kaloona ictiraafayaana jidka way ku soo jiraan war ma haysiina cayaartii fiinaalka ahayd gobolka banaadir oo habeen dhaweyd baaqatay waxaaba la leeyahay sababta ay u baaqatay khilaafay ahayd khilaaf maahina korontadaa dantee naga shibdha war ma haysida korontada lafteeda khilaaf u dantaa la yidhi ina dhegayso yaa farsamayaqaankeeri inta u aada furuqa gale war farsamayaqaanka furaha laga qaatay naga dhegaysa warka wasaaradda dhallinyarada isboortsku waraaqay soo saartay khadiija warqad soo saartay maa dhahdid war cumar finish ay ku soctay maa dhahdid war waxaan rabnaa aan dhahna calaa kulli xaal gobolka iyo wasaaradda iyo isboortiga khilaafaad ka jira arrintu u rakaataysantaha la leeyahay war ma haysaane dawladdu markay bashiir gooba ka qaaday ciidanka asluubta dad baa waxay dhahayeen war bashiir gooba waa dadaalaye maxaa meesha looga qaaday war soo tuu cashada sameeyey yidhi xil lagaa qaaday ha u bixin ula baxay war naga dhegaysa warka annagaaba codsi kale dawladda u gudbin rabne waxaanna ka codsanaynaa dawladda bashiir gooba 6 bilood ka badan inuusan hal meel ka shaqayn oo mar kasta meel kale loo bedelo sababtoo maanta waxaan arkay wakaaladii horumarinta dhismaha Soomaaliyeed oo meel eber oo kursi meel idla yaallo uu ku fadhiyo ka bilaabay 2 bilood gudaheed suuq ka dhigay waa la yaabay muga ma waxaad leedahay generaalku meel walba u bilaabo muga u dhammeeyo ha laga tuure meel kaloo dhismo u baahan ha la geeyo ilaahay wasiirka amniga hayga dhigo wallahi inaan jidad badan xiran lahaa ariya wax ma ogida qaraxi maanta bug yiri waxa ay mid la fashiliyo minaan jidku xiraa lahayna waa la isku soo ku baaray lahay oo ma wuxuu ahaa qarax nabadeed yaa adduunya soo joogo weligay qarax nabadeed ma maqlin yaahu war qaraxii nafii maal ilaahay ka badbaadi waa qarax nabadeed warnimiya walmooshiidiina galmudugtii ku dhiidi wal isliyaabi shalay maalinkii maalin maamuudhaay iyo onogi kisheyshay ra'iisul wasaare Dr. Shaakir Haay meel fagaare waa ciidankan qudbeeyaan leeri markaas hadara ka dhow sidaan widaay noo soo dhawaaw he Sayid Mahmuudo noo soo dhawaaw he yareen madaasa ra'iisul wasaare Sheekh Shaakir usoo qudbadii la ka gorada ayaa ka dhaw nagadi ciidankan ciidan aqara weeye ciidan aqaraatihin ciidan adduun ma ihiidin ilaahay garabkiina hagalo ee waxaad samaysiin qoladan dawladda sheeganayso jidka waa ka beereen wadadii qonneedna waa ka beereen ciidan aqaraatihin meel iska saara wari isuga wiilay oo suglantiin abuurday timir ma hambahaaso dawladina hata ka hor anti ciidan ejeeytay isan ogaaytaan ciidan kale ka kor dartay wilba maga gaar leh oo magaashay maga gaar leh madan isin la magaan liyaabi haram ad yeleeri hayamaday isaaqow ma leesu dhiila dhaansaday runta u reer galmudug hamiinki inis dhiila dhaansadayaan waana difaac inis galaayaan maalintiina abba anjeerada isla aamayaan ina aase war musharax madaxweynaha galmudug Cabdiraxmaan Odowa wuxuu yiri dawladda iyo ahlu sunna guddiyaday magacaabayaan iyo baabulkii wadaan ha joojiyeen war qoorta kaleena muxuu yiri
anugu waxaan dhihi lahaa dhuusamareeb odayaasha joogaa sidii xaaf uga tegey ha uga tageen war galmudug madaxweynaha ku-meelgaarka qarafaan ha looga dambeeyo aryaada anigu galmudug waxaan ogaay madaxweynahoodii xaafoo warqad soo saaray wuxuuna yidhi maamulka galmudug waxaan ku wareejiyey dhismihiisa wasaaradda arrimaha gudaha mugga galmudug wixii ka hallaaba dawladda soomaaliyaa laga rabaa horena waxaa loo yidhi oo shirib hore ahaay how hadday goodobtaa goobtaa taal ku geftaa geebeerayga roon hadday goodobtaa goobtaan taal ku geftoo geebeerayga roon haye oo hadda galmudug wixii ka qaldama maqayre iyo qarafaana loo haystaa war galan welb walaagiya jaysatiyadale ku fadaniyow heesaa waxay ahayd cid kale loo dooni maayo warnaa dhuusamareeb waxaan dhihi lahaa sidii baydhabo oo kale ha lagu kala baxa ama sidii kismaayo gacmaha laga taagto sidii garow oo kale maxaa u diidaya war si cusub maxaa u diidaya sida cusubaad sheegay tan laysku heesta ahaa war ma haysiine soomaalidu waxay isku haysaysato waa lacag la'aan wasaaradda batroolkana waxay tidhi malaayiin dollar oo shirkadihii hore oo batroolka aan ku lahayn ayaana lagu wareejiyey malyuumaadkan la sheegayo labadoo cantoobood laygama siiyo aniga qaybtii Soomaaliland maaday warana may ba kala talay lahaayay beledweynahayga samata biyoy walaaga herniin qayb samaayana warana waxaan kula talin lahaa amniga magaalada muqdisho inay ku sugaan war aniga waxaan ku talin lahay akoonada dibadda ayaan lagu shubin warada waa la teene waxa la weysan yahay maarayntii maahana waa maaliyadii aniguna waxaan ku talin lahay idinkoo dhanan idinka tasha lahay arada war ma haysiine Itoobiya waa la iska haystaa la yiri aryaa ma sagaaradiya kaaga qaxday war Masar iyo Itoobiya wabiga Nayl isku haystaan odayaashoodina waa wada hadleena liidi war oramada iyo xukunka isku haysata oo Abiy Ahmed Abiy Jawhar ku soo baxay arnaga shibda kuwaas Jawhar soo ma akrogta karaan war Jawharka ku haysta Abiy Ahmed kursiga wuxuu yiri Abiy Ahmed kaligiis talasnimada ha joojiye muga ma madaxweyne waara kaligii taliya lagu soo xagliha war oramadu warigeed ba has qabsato haystishe annaga qaad ku rano soo furan war awowgood la dhan baadinka war haya golay wasiirada Jubbaland eega lagu dhawaaqi waad ogaa doontaana wasiirka u horeeya wuxuu noqon doonaa Cabdirashiid Janan war wuxuu noqon doonaa Cabdirashiid Jire war wasiir Janan garaankii dawladda lagu magac daray war yaa wasiirka ugu horeeya Jubbaland waa Darwiish war xildigii sayraar miyaa wasiir laga dhigayniyo garoonka diyaaradaha ee Dublin waa xiran yahay war xirsi dhuuc waxa beeca u waa laashimiinta yaa ka gadaayahe ani si laga biwaaqana sida laga biwaaqana Allah idin geliye qabaab naga taga daruur haydi ku dacde adiga daad ha ku qaado daad hay qaadsin duf ku baxay